بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo ay taariikhdu tahay 12kii bishii shanaad 2020 waxaan halkan mudane madaxweyne ku xigeen isugu nimi wareejinta deeq ka timiday walaalkeen Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Boore oo uu noo soo wakiishay lacagtaasi waxay ka kooban tahay $170,000 $100,000 waa cash oo waxa lagu tala galay gudida ka hortagga xanuunka coronavirus 70 kuna waxa weeyaan raashin mudane madaxweyne ku xigeen idinkoo shaqadii qaranka ku jira laakiin aad waqtina siiseen waxaan idinku wareejinaynaa deeqda ka timiday walaalkeen Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Boore inaad naga guddoontaan waa mahadsantiin alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ugu horeyn madaxweyne ku xigeen mudane Faysal gudoomiyaha hay'adda Netford iyo madaxda runtii uu soo wakiishay walaalkeen Cabdiraxmaan Boore la shaqeeya dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugu horeyn ilaahay waxaynu ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu cudurka inaga qaado innaka iyo dadka muslimiinta iyo caalamka oo dhan ba ilaahay ka badbaadiyo waxaan ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala bisha ramadaan acmaasheeda ilaahay naga aqbalo halkan maanta sida madaxweyne ku-xigeenka noogu hortaagan yahay maalin walba inuu imanayso shirkad ama maanta dad ashqaasi oo ka naxaya dadkooda runtii waxay muujinaysaa iimaanka ay leeyihiin iyo qiimaha ay dalkooda ugu joogaan sidaa darteed walaalkeen Cabdiraxmaan Boore waxaan ugu ducaynaynaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala ka abaaliyo oo ilaahay subxaana wa tacaala u gargaaro oo ilaahay maalkiisa u barakeeyo intuu la hadhayna ilaahay u barakeeyo intuu soo bixiyeyna ilaahay ka aqbalo waayo waa bishii sadaqada waa bishii khayrka oo sidoo kalena يعني إلهي سبحانه وتعالى قف ولكن حريسته قف مسلم ونحرسته إلهنا هو جرجارة سنة ونحرسته وحنا إلهنا قبرنا إلهي سبحانه وتعالى إنه دباتوين كدوروك إلى ليه عقد الدقيق ده قدمها بدن منا يتمت كاش $100,000 منا يتطبات تكون ويمكن عنطاء وهذا اللي جلو ريجي وفيصل على الشيخ قدومي هيدا نتفورد وعنتك قدي جاي أنت وين وقوم هذا نقينا حنا إلهي كابالي وبجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحونا كحيانك جمهورية الصوماليلاند مدن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي وسيرك وسارد دينتا إيا وقافتا الشيخ خليل عبد الله أحمد مسؤولين تكسعوداء شركة دا ريرسي عبد الرحمن بوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaan jecelahay runtii inaanu aad iyo aad ugu mahad celino shirkadda Rersi Cabdiraxmaan Boore oo runtii maanta gudida sare ee qaranka ku wareejisay lacag dhan $100,000 iyo $70,000 oo raashin ah oo khaasatan hay'adda Netford qaybtaas runtii ay ku wareejiyeen aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinaynaa sida wanaagsan ee ay wadeernaxeen ee ay u dadaaleen ee ay u horeen cash iyo raashinba shirkadda Rersi Cabdiraxmaan Boore aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinayaa maxamed iyo groupkoodana runtii maamulka gacanta ku hayay iyo xiriirka wanaagsan ee gudida iyo dawladda Soomaaliland baan runtii la soo sameeyeen aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan ku dhiiri galinaynaa runtii ganacsatada Soomaaliland ee ka faa'iido shacbigooda in ay u deernaxaan dadkooda oo shirkado badan oo runtii wax bixiyay oo noo mahadnaqaynaa Telesom iyo ay ka mid yihiin runtii waa jiraan kuwa dhiman waxaan u leenahay war umadiina dhib haysata isu socodkii waa yaraaday shaqooyinkii waa in badan baa istaagtay dadkii runtii macaluul baa jirta fara badan oo magaalooyinka waaweyn ee dalka oo dhan runtii ka jirta xukuumaddu mar walba madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada iyo dhammaan xukuumadda Soomaaliland runtii waxay u kacday iyo shacbiga Soomaaliland ba inay hawshaas runtii dhammaantood ay gacmaha iswada qabsadaan oo laga wada shaqeeyo gudiyada dhammaantood kuwa shacbiga iyo kuwa ganacsataaba waxaanu jecelahay in ay ku dhiiradaan ganacsatada kale ee waaweyni in ay ummadooda wax soo gaarsiiyaan hadda waxa qorshaysan oo madaxweyne ku-xigeenkii madaxweynuhu runtii ay qorsheeyeen ilaa 40,000 oo qoys in la bilaabo hadii ilaahay raasi dhaqsa loo rajaysan gareeyo dadka baahan ay saamaysay xanuunkaasi uu saameeyay
aad iyo aad baan runtii dadaalka xukuumadduna qaybteedii runtii waa ay ku dartay aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinaynaa dadaalka guddida uu madaxweyne ku-xigeenku runtii hogaaminayo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa halkii loogu talagalay baanu insha allahu kariim wax kasta oo qaranka soo gala halkiisii ayaanu dhigi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo aad iyo aad baa u mahadsantihiin الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي بان مهد مرك هوري مرك اللباد وعن halkan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa kana gudoomaynaa mudane cabdiraxmaan maxamed boore madaxa shirkadda Reersii oo si shakhsiya taakulintan noo soo gaarsiiyey runtii mahad ilaahay ka sugo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waana ka gudoonay iyadoo runtii aan u arkayno nin u soo naxay ummadda reer Soomaaliland maanta dhibaatadu ka soo gaadhay xag saameynta dhaqaale xanuunka sida kale aanu aad u badnayn laakiin saameyntiisa dhaqaaluhu maanta ay aad iyo aad caalamka iyo innagaba ina saameysay runtii oo waqtigii aan u baahnayn in annagu imika ugu talagalnay in ummadda dadkii baahnaay magaalooyinka waaweyn joogay inaan taakulayno oon gaadhsiino cunto isna runtii qaybtiisii na soo gaadhsiiyey waan ka gudoonnay runtii waxaan aad ugu mahadnaqaynaa maxamed oo ah wakiilka halkani u jooga oo na soo gaadhsiiyey runtii hawshani inuu na soo gaadhsiiyey 100,000 oo jeega iyo 70,000 oo raashinnimo ahaan ah guud ahaan isku lacag isku ah $170,000 waan ka gudoonnay aad iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa waxaan ka filanaa cid kasta oo maanta ilaahay wax siiyey oo dhaqaale haysata inayna maanta shacabkooda ka hakranin waqti laga hakradaan la joogin laba arrimood baan loo maanta qofna wuxuu hakran waa maro maanta dadkoodii laga ganacsanayay ama la maamulay ama shacabkeeniba maanta dhibaataysan oo xanuunkii saameyn badan oo dhaqaale noo keenay waa midda labaad waa bishii barakaysnayd ee cid walba waajib ku ahayd in sadaqadii sakaba ay bixiso marka waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda muxsiniinta ah ee maanta dhaqaale haysata mid fardu haysta iyo mid shirkadnimo haystaba in runtii taakulaynta ay la soo degdegaan oo dadka maartay inuu wax gaarsiino inta muddada ciidda ka horeysa inuu wax gaarsiinayaan iyo inuu diyaar u nahay aad iyo aad baan u mahadsantiin dhamaantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.